Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalaha garbahayga ku soo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa channelka aad naga daawaneysana waa Xafsa channel ala barnaamijkan waxaa idin soo gudbisaa islaaniga walaashin Xafsa Sayid soo dhawaada meel walba ay joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado suubayn wallah idin siiyo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waan fiicanahay alxamdulillaah waxay inoo soo socday kitaabkeena imtixaanaha ahaa ee la magac baxay baro 100 xadiis hase yeeshee intaan u gudagalin muuqaalka iyaga maanta ugu horeyn haddii ay tahay markii ugu horeysa channelka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad horena joogtan like saar u share garee asxaabtaada oo la wadaag nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeena 41 biidnillah bismillaah can abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu calayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam qaal atadruuna mal ghiibatu qaalu allahu wa rasuluhu a'lam قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته نبينا نودجليه نحريس كركيسا هاتee wuxuu dhahay ma garanaysaan xamta oo ma taqaanaan waxa loola jeedo saxaabadii ayaa waxay dhaheen Allah iyo rasuulkiisa ayaa og nabiga ayaa ku jawaabay wuxuuna yiri waa walaalkaaga oo aad ka sheegto waxa uu dhibsanayo saxaabadii waxay dhaheen bal ka waran hadii uu yahay walaalkayga waxaan ka sheegayo nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay hadii uu yahay walaalkaaga wax aad ka sheegayso uu ku sugan yahay faqad iqtabtahu waad xamatay wa in lam yakun fiihi hadii uusan ahayn faqad bahatahu waad ku been abuuratay nabiga ayaa waxa dhahay ma taqaanaan xanta waxa loola jeedo saxaabadii ayaa dhaheen Allah iyo rasuulkiisa ayaa og nabiga ayaa waxa dhahay waa walaalkaaga oo aad ka sheegto waxa uu dhibsanayo saxaabadii waxay dhaheen bal ka waran hadii uu yahay walaalkayga waxaan ka sheegayo hadii uu ku sugan yahay nabiga wuxuu dhahay hadii uu yahay walaalkaaga uu ku sugan yahay wax aad ka sheegayso waad xamatay hadii uusan ahayn waad ku been abuuratay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen guud ahaan intan ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayaga maanta waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkayaga sidoo kale waad ku mahadsan tahay haddii aad subscribe saartay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu